waxa waaye horta waa salaamaya dadka Soomaaliyeed waxaan eebba ka baryayaa in Soomaalida qulubteeda Ilaahay maaragtay isku soo duwo cadow badan ayaa ku dhex jira cadow oo maaragtay argagaxiso leh oo muxuu ahay iyo dawladaha dariska intaba waxay ka shaqeynayaan Soomaaliya inay ahaato mid liidato oo xuduudadeeda aan difaacan karin oo maaragtay aad u liidato aan isdifaaci karin oo muxuu ahay u kala qoban muxuu ahay gobollo u kala qaybsan waa wax cadowga uu ka shaqeeyay hubkaani muxuu ahay bilow ma ahan hadeertaan berigi warlordka oo wadanka uu burburka u dhacay dawladii adkeed oo muxuu ahay difaacaysa dalka ay ka baxda meesha warlordada markii Umila Zanaawi uu yeeray sirdoonka Ethiopia ay u yeeraan intaba waxa ay sameyn jireen muxuu ahaa mid ayaa loola kulmi jiray warlordka maxaa ka dhiman huba aad u baahan tahay iskaga celin kartaa aad ku difaacan kartaa aaga aad haysato warlord hebel intaas huba la soo siiyay warlord hebel intaas la soo siiyay hogaamiye kooxeedyada meeshaas ku shiraayo Ethiopia weligeed qofka ay dadka Soomaaliyeed lagu laayo wuxuu ka imaan jiray Ethiopia argagixisada shabaab waxa ku dhex jira sirdoonka Ethiopia ku dhex jiro oo hubka siiyo oo wax walba siiyo hadda ayaan dhaweyd filmay noo dhigeen bakool ay ku dagaalayna yiri Ethiopianki iyo muxuu ahay argagixisada hal qof oo dhaawac ay hal dhintay oo Ethiopiana lama arkin hub ay maartay u daadiyeen inay dadka Soomaaliyeed lagu dhibaateeyo marka Ethiopia hubkan way soo galisay iyadana ka shiftay sirdoonka Ethiopiana ka dambeeyo dadka Soomaaliyeed inay saas ogaadaan la rabaa marixaana qabsaday iyo maxaa galmudug loo waday iyo dawladda lagu inqilaabay ma ahan hubkaani waxa waa la soo galiyay ganacsatada laga iibiyay kuwa maxaa hubka ka beecmistara laga iibiyay markii uu soo gudbayna waxa uu soo gudbayeen way fashiliyeen si caalamka u arko laakiin waxa ayaan daraa qaar kamida maxaa mas'uuliyiinta oo maanta 60 jir ah ama 70 ku sii socdo oo ilmaha oo asaga u dhalo oo sanafacooda oo san heli doonin iyo kuwa awoowaha u yahay ayaa waxay maxaa ku andacoonayaan maanta ay leeyihiin Soomaaliyeena waxba iska celinin fadhiid ha noqoto asaageeda iyo raacin xuduudeeda iyo san difaacanin una qabataynta hubka maxaa laga adkeeyay awalna horaan u sheegay saasay leeyihiin waxa waaye maantay waxa hubkaasi dadka shacabka gacanta u galay waxay leeyihiin akhyaaray leeyihiin dadka hubka maanka gacanta u galay akhyaaray leeyihiin culimay leeyihiin waxgarad ay leeyihiin dad wadaniyiin ay leeyihiin hubkaas inay iyagana isku dilin dad Soomaaliyeed aysan ku dhibaateynin laakiin waa shaqo sirdoonka Ethiopia oo leeyahay oo magaalada Muqdisho ka howlgalo oo maamul goboleedyada ka howlgalo oo maxaa Hargeysa ka howlgalo oo Puntland ka howlgalo oo Muqdisho ka howlgalo oo Kismaayo ku fadhiyo Soomaaliyeed doqonay waxa waa la qabsana oo wallahi oo billahi oo tallahi waxa la rabaa maantay inaan saa fadhiid u ahaato u gaajo ku hayso oo aadan dhinacna argagixisada lagu hubayna dhinacna waxa waa qabaa'ilka ay hubaynayna maxaa Ethiopia waaya sida aad sheegtay hadiiba ay jirto oo sirdoonka Ethiopia arintan ay ka shaqeeyeen aan ogsoonahay sidoo kale in khilaaf culus u dhaxeeyo dawladaha Soomaaliya iyo Ethiopia waa maxay talaabooyinka la gudboon dawladda Soomaaliya dawladda Soomaaliya waxa waaye maanta dawladda Soomaaliya inay xuduudadeeda ay difaacato oo wadanka oo dhan ay ku filaato waxa hortaagan shakhsiyaad siyaasiyiin oo danley ah oo maamul goboleed la yiraahdo oo federaal maxaa ahay loo bixiyay kuwa ayaa hortaagan maanta dawladda Soomaaliya maanta maxaa Puntland kama talin karto maxaa dawladda oo federaalka dawladda dhexe oo ummadda Soomaaliyeed ka dhaxayso oo xildhibaanada kaga imaanayaan Puntland koonfur galbeed kaga imaanayaan galmudug kaga imaanayaan laakiin se dawladda awood uma laha inay meeshaas ciidan midaysan ee xoogga dalka Soomaaliyeed ka howlgalaan intaas oo federaal oo la sheegay mid walba waxa loo design ay wixii dejiyeen Ethiopia oo shabaqa dad aqli leh oo maxaa ahay alla ka cabsanay inay u kacaan maahine waxa way marnaba aan laga bixinin dawladda dhexe maray joogtaa bas maxay kala sameyn kartaa wax kale oo ay sameyn kartaa male walaalkaaga Soomaaliga kula hadii uu ku diiday waa ku yiri ku imaan maayo oo ku dacweynayo oo markii la yiri Ethiopianka ka baxaan oo koonfur galbeed ay tiri naga bixi maayo waa walaalahayn oo maaragtay
marka waa nasiib darro waay waa dad maantay nolosha inta uga hartay ayba yar tahay ayaa maanta muxuu ahay dalka heerkaas gaarsiiyey oo mustaqbalka ummadeed muxuu ahay hortaagan oo muxuu ahay generationka habqanka oo maaragtay ku dhamaaday muxuu ahay badaha ku dhamaaday oo saxaraha ku dhamaaday oo meel aadaan jiro mustaqbalka aan lahayn oday dayuusha oo maaragtay maamul goboleed joogo ama magaalada muqdisho joogo xildhibaan ayaa hortaagan marka waxaa la rabaa dad caqli leh in ahlul caqliga inay u istaagaan sida loo badbaadin lahaa Soomaaliya hubkan hadda gacanta u galay maleeshiyaadka hubeysan ee ku sugan magaalada Caabudwaaq ee gobolka Galgaduud kana yimid dhinaca Itoobiya qatar culus ayuu leeyahay waxaa laga yaabaa in kooxaha loogu yeero argagixisada gacanta u galo sidoo kalena dadka Soomaaliyeed ay isku dilaan maadaama dagaalo qabali ah dhexdooda uu ka dhaxdhaco marka qatar intee la eg ayuu hubkan leeyahay maxaase ugu baaqaysaa shacabka Soomaaliyeed ku dhageysanaya war maleeshiyaad is haysto oo maaragtay oo qabaliyo u abaabulan qabiil u abaabulan ma jiro waa run qabaa'ilka way dagaalamaan laakiin shacabkiya ku yaacay caruur yar oo 10 jir ah maanta qoraakay haystaan oo bastoolada haystaan oo dabajeexay haystaan shacabkiya ku yaacay shacabka ayuu gacantiisa u galay waana shirqool dadka Soomaaliyeed loo dejiyay hubkaasi way isku laynayaan dawladda iskale been way ertoogta waxa waaye say biyana iyo maxay kaarani inta u dhaxaysa waxa waaye waa suuqa hubka lagu kala iibsado way weligeedna saasay hubkaana ganacsataa lahayd maxay ka bixin mushtarto waxa waaye waana shirqoolka in dadka fashiliyay inuu hubka uu soo gudbano waxa waa sirdoonka Itoobiya si ay caalamka u tusaan Soomaaliya inaysan noqon karin dawlad aysan noqon karin waa sidaas shacab iyo hooyooyin iyo ilmo yar iyo hubka gacanta u galay yar iyo wiilkaygiiyow hee ii soo tiri isbitaalada magaalada ku yaala Soomaali Suudaneys kow bes Allahu akbar war meeqa tabeelan laamiyada ku arkay aaba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn Soomaali Suudaneys Hospital SSH Premier Wallet baahitiraha bulshada ku bixi biilka ku dukaamayso ku iibso ama kaga iibso Premier Wallet adeega